dugsiga lama huraan ee magaalada Burco ayaa kulan casho sharaf ah hotel Golis ugu sameeyay 340 arday oo kaalmaha hore ka galay imtixaan 7 cisho socday oo laga qaaday ardayda dugsigaasi sidoo kale waxa ardaydan loo qabtay kadis lagu weydiinayo su'aalo ay ku helayaan jaayisada kala duwan oo isugu jira dahab lacag iyo moobilo maamulaha dugsiyada lama huraan ee magaalada Burco Aydrus Xaaji Cabayd oo xafladaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri munaasabatan laba waxyaabood iskugu jirtaa waqtigiina soo gabagaboobay oo aanu xaflad yar idinku sii qabanay xaflad aynu qabsan doono 11 bisha January ee sanadka 2015 hadii ilaahay dhaado halkaas aanu ku qaadanayno shahaadooyin caalami ah waxa xafladu kale oo caawa ay iskugu jira baqtiya nasiib waxaad ku helaysaa hadii eebeedmo kitaabka quraanka kariimka waa weyn dahab baa ku jira waxa ku jira lacag dollar ah waxa ku jira macmacaan oo dhan timir iyo xalwad dayib waxa soo dhan yaani waxaanu u doonaynaa ardaydayda inaan ogeysiino inaan la jecel lacageedna haynin marnaba ee ayna hayso bulshada wixii laga qaaday in iyaga dib loogu celiyo oo la tuso iskuulo wax bixin kara iyagoo aan ku bixinayn jaayisooyin waxa tiin 43 students 19 kamid waxay helayaan mid walba wuxuu qaadanaya Saciid Ahmed oo kamid ah maamulka dugsiga iyo ardayga ku guuleystay dahabka Mukhtaar Ahmed Saalax ayaa iyaguna ka hadlay xafladaasi loo qabtay waxaan kala rabaa halkan inaan idinkana sidoo kale aan wax ka yiraahdo in leedin soo kordhiyay waxbarasho aad u fara badan oo ay luqadii Carabiga kamid tahay oo ay kamid tahay non formal education ki waxbarashadii caruurta iyo waxbarashadii caruurta iyo dadka waaweyn adult education labadaba yaani lama huraan college waxa uu hagar baxay dhiirigelinta ardaydiisa laakiin imika alxamdulillah waxaan helay dahabkii wisi dhiirigelinayaaba aad ayaan idinku mahad celinayaa dhamaantiin xafladda mid lagu dhiirigelinayo ardayda dugsiga lama huraan ayaa waxa kale oo ka hadlay macallimiinta dugsiyada lama huraan iyo xubno kamid ah ardayda dugsiyadaasi dugsiga lama huraan ayaa noqonaya markii labaad oo ardaydiisa ku abaal mariyo jaayisada dahaba Kaysa Ahmed Dagaale Home Cable TV Burco.